السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسنا خيارتا ودنا نقول حرسي واحد كسر دواتان برنامج كنا حلقة حقتا تضبط كان كسر قادنا على موضوعية قدر كرون دلكا إيو دبدا قدم كنا وجوه ريا كسر قادنا نعاوه وحاو كسر بسنيه إن وزير كبيرة بيه iyo taranka xoolaha isagu booqasho ku gaaray xarunta cilmi baarista ee SARD halkaas oo ku soo indheynay hawlaha in vitro sida ay u socdaan iyada oo qayb ka tahay booqashada uu ku marayo hay'adaha kala duwan ee hoos yimaada wasaaradda beeraha wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane Radwaan Cabdullaahi Bahdoon oo uu heliyo wasiirka ballaarinta maamulka mudane Cumar Xuseen Cumar ayaa booqasho shaqo iyo kormeer ah ku tagay shaybaarka in vitro ee wasaaradda beeraha ee ku dhex yaala xarunta SARD labada wasiir waxaa soo dhaweeyay agaasimaha shaybaarka Dr. Cabdiraxmaan Daahir oo ay weheliyaan xubnaha shaqalaha ka howlgala xaruntaasi shaybaarka muuqashadu waxay ku bilaabatay warbixino ku saabsan hawlaha iyo shaqooyinka iyo qorshayaasha mustaqbalka ee shaybaarka ka hor inta aysan wasiiradu booqan qaybaha iyo xarumaha farsamo ee kala duwan shaybaarku waxa uu leeyahay qayb gaar ah oo ku takhasustay taranka geedka timirta iyada oo loo adeegsanayo habkan in vitroga taasoo ku dhisan farsamooyin casri ah oo biology ah oo xagga dhirta ah waxa kale oo shaybaarka ku yaala xarun beereed casri ah oo si buuxda automatic ah kaasoo loogu talagalay in dhirta in vitrog ah lagu soo saaro si tartiib ah oo lagu waafajiyo xaaladaha deegaanka ka hor inta aan dhulka lagu beerin xarumahan waxa sidoo kale kabaya qayb farsamo oo ku takhasustay biolojiyada molecularka kaasoo gaar ahaan loo adeegsado hubinta iyo baaritaanka qaybaha dhirta ee la soo saaro inta ay booqashadu socotay labada wasiir waxay farsamayaqaanada iyo cilmi-baarayaasha ay ka dhigaysteen warbixino faahfaahsan oo ku saabsan howlaha iyo waajibaadka kala duwan ee shaybaarkan oo ah mid nuuciisu yahay mid gaar ah wasiirka shaqada qaabilsan dib u habeynta maamulka ayaa isaguna booqasho ku gaaray xarunta tababarka logistiga ee dhalinta lagu tababaro ee CXC halkaasi oo isna ku soo indheeyay howlaha tababarka loo fidiyo dhalinta u qaabilsan qaybta logistiga ee marsooyinka wasiirka shaqada mudane Yunis Ali Geedi ayaa booqasho rasmi ah ku tagay xarunta tababarada ee xirfadaha ee loo yaqaan CRC ee ku taala BK 13 iyadoo booqashadu ay qayb ka tahay xaqiijinta dadaalada lagu xoojinayo fursadaha shaqo helidda tababarada xirfadaha iyo horumarinta aqoonta shaqaalaha wasiirka waxaa booqashada ku heliyay wafdi ballaaran oo kamid ah xubnaha xukuumadda sida wasiirka kaabayaasha iyo qalbaynta mudane Siciid Nuux Xasan wasiirka miisaaniyadda mudane Cismaan Ibraahim Roble wasiirka arrimaha dibadda ahna kusmaha wasiirka ganacsiga mudane Cabdulqaadir Xuseen Cumar xogayaha guud ee wasaaradda ganacsiga mudane Cali Daawud iyo gudoomiyaha rugta ganacsi ee Djibouti mudane Yuusuf Muuse Dawaale booqashadu waxay wafdiga u sahashay in ay soo arkaan kaabayaasha iyo howlaha kala duwan ee xarunta ay leedahay sidoo kale barnaamijyada loogu talagalay tababarka helitaanka xirfadaha wax ku oolka ah iyo diyaarinta dhalinyarada suuqa shaqo inta ay booqashadu ay socotay mas'uuliyiinta xaruntu waxay soo bandhigeen howlaha kala duwan ee xaruntu ay qabato doorka ay ku leedahay taageerada dhalinyarada iyo dadka shaqadoonka ah iyo qorshayaasha lagu horumariyo barnaamijyada xaruntani wadahadalladu waxay sidoo kale ku saabsanayeen baahiyaha suuqa shaqada iyo muhiimadda ay leedahay in xirfadaha ay heleen ka faa'iidaystayaashu ay si dhow ugu dhowaadaan baahiyaha shirkadaha iyo qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha wasiirka shaqadu waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay xoojinta hababka dhalinyarada lagu suurtagelinayo in ay helaan fursado ku habboon baahiyaha dhabta ah ee suuqa shaqada gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi ayaa isaguna soo bandhigay isla mar ahaantaasina gudoomiyay barnaamijka cadadkiisa afraad ee C-Star oo ay ka soo qayb qaateen dalal ka tirsan qaaradda Afrika iyo dhalinta reer Djibouti halkaasi oo lagu dhaqaajiyay cadadka afraad ee barnaamijka tartanka C-Star munaasabadda furitaanka cadadka afraad ee barnaamijka loogu magac daray C-Star oo algoritmka la qaato uu ahaa
hal abuurka iyo ganacsiga dhalinyarada kaasoo munaasabad ay ka qabsoontay xarunta bandhigada caalamiga ee Djibouti. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha maamulka marsooyinka goobaha ka cagan cashuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi, gudoomiyaha China Merchant Group mudane Miyo Shamini, wasiirka gaabayaasha iyo qalabaynta mudane Siciid Nuur Xasan, wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawaale, wasiirada dhaqaalaha nimeriga iyo hal abuurka Marwo Safiya Maxamed Cali Gadiile, safiirka Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha ee Djibouti mudane Hubin, ku-xigeenka wakiilka joogtada ee PNUD ee Djibouti iyo wakiilka sare ee China Merchant Group u qaabilsan Afrika. Tan iyo markii la bilaabay sanadkii 2022 barnaamijkan CSR waxa uu noqday madal Afrika ah oo muhiim u ah xoojinta awoodda ganacsi iyo horumarinta hogaaminta dhalinyarada. Barnaamijku waxa uu tababar siiyey in ka badan 1500 oo ka qaybgalayaal ah oo ka kala yimid in ka badan 50 dal oo Afrika ah, iyadoo haweenku ay yihiin 45% kaasoo ay ka faa'iideysteen barnaamijkan. Cadadka 2026 waxaa la helay 640 codsi oo ka kala yimid 44 dal oo ku yaala qaaraddan Afrika, kuwaasoo 32 ka mid ah la soo xulay. Qaybgalayaashani waxay ka kala socdaan 49 dal oo Afrika ah sida dalka Algeria, Gabon Verde, Côte d'Ivoire, Djibouti, Masar, Ethiopia, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Maroc, Namibia, Nigeria, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia iyo Zimbabwe. Barnaamijkan CSR waxaa lagu fuliyey iskaashi la leeyahay China Merchant Charity Foundation, PNUD iyo xarunta shirkad abuurka iyo hal abuurka ee xaruntaasi Clay. wasiirka tamarta ayaa isaguna booqasho howleed ugu baxay dalka Ghana, halkaasi oo kulamo ku qaadanayo iyo sidoo kale aqoon isweydaarsiyo oo wasiirka tamarta isagu booqashadaasi oo ku weelinayay wafdi ka socda wasaaraddiisa ay ugu bixeen Ghana. shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika ee tamarta nuclearka ayaa lagu qabtay magaalada Accra dalkaasi Ghana intii u dhaxaysay 19 ilaa 22 bishan Août ee sanadka 2026. Jamhuuriyadda Djibouti waxaa shirkan ku metelayay wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga Dr. Jamac Maxamed Xasan. Waxaa iskugu yimiday wasiiro iyo mas'uuliyiin sare oo dhinaca tamarta ah oo ka kala socday Mareykanka iyo dalalka qaaradda Afrika, hay'adaha nidaamyada tamarta, madaxda shirkadaha bahwadaagta horumarinta maalgashadayaasha, hay'adaha maaliyadeed iyo ururada caalamiga iyo madaxda warshadaha nuclearka. Ujeedadu waxay ahayd in laga wada hadlo horumarinta tamarta nuclearka ee loo adeegsanayo ujeedooyin nabadeed, caqabadaha jira iyo sidii loo xoojin lahaa horumarinta xirfadaha Afrika ee dhinaca tamarta. Qaybgalka Djibouti ee shirkan waxa uu qayb ka yahay istaraatiijiyadda dalka ee casriyeynta tamarta iyo taageerada warshadaynta dalka. Djibouti waxay sidaasi ku muujisay sida uga go'an tahay xoojinta iskaashiga dhinaca tamarta ee ay la leedahay dalka Mareykanka iyo dalalka kale ee ku yaala qaaraddan Afrika. san wadooyinka ee ADR ayaa ka wargelinaysa bulshooyinka reer Djibouti in la xiray qayb ka mid ah wadada Venice, halkaasi ay ka socdaan howlo dib u dayactir ah wadadaasi ee Venice. Sida horaantiiba toddobaadkii hore lagu dhawaaqay, xiritaanka qayb ka mid ah wadada Venice ayaa 22 bishan Août ee sanadka 2026 ka bilaamay qayb u dhaxaysa wareegga Xumbuli ee Fan City ilaa isgoyska Balmareega. Tallaabadan ayaa qayb ka ah howlaha dib u dayactirka iyo ballaarinta wadada Venice. Waxaa la qorsheynay socoto ilaa iyo 31 bisha December ee nagu soo food leh ee sanadkan 2026. Furitaankani waxa uu qayb ka yahay wajiga koobaad ee barnaamijka shaqooyinka ee lagu fulinayo dhowr qaybood. Waxa uu si gaar ah u ogolaanayaa ballaarinta wadada iyo hagaajinta kaabayaasha gaadiidka. Hay'adaha wadooyinka Djibouti waxay ku boorisay dadka isticmaala wadada in ay u hoggaansamaan calaamadaha iyo tilmaamaha la dhigay wadooyinka, isla markaana taxaddar dheeraad ah muujiyaan marka ay marayaan goobaha shaqadu ay ka socoto. Hay'addu waxay sidoo kale uga mahad celinaysaa darawallada iyo dadka adeegsada iyo wada shaqayntooda inta ay soconayaan howlahani. orodyahanno ka socda Jamhuuriyadda Djibouti ayaa iyagu ka qayb qaatay tartanka caalami ee orodada ee ka socda dalka Kuuriyada Koonfureed. magaalada lagu magacaabo Diagu ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa martigelinaysa tartanka adduunka ee ciyaaraha orodada fudfudud ee Master 2026 oo ah munaasabad isboorti oo heer caalami ah taasoo ay ka qayb galayaan kumanaan ciyaartooy oo ka kala yimid dalal badan.
munaasabadda furitaanka ayaa lagu qabtay garoonka ku yaala Digaw iyadoo goobjoog ka ahayeen wafdiyo kala duwan oo ka qayb galaya tartankan. Furitaanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay nolotusyo kala duwan oo ay sameeyeen wafdiyada ka socda dalalka ka qayb galaya iyadoo wafdi kasta uu watay calanka dalkiisa, taasoo abuurtay jawi muujinaysa midnimada iyo isku soo dhawaanshaha ka qaybgalayaasha. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa tartanka caalamiga ka qayb qaadanaysa wafdi isboorti ah. ciyaartooyga Jabuuti ee tartanka ka qayb galaya waxaa ka mid ah mudane Cabdirashiid Cawaale oo ah orodiyaan caalami ah oo reer Jabuuti ah, kaas oo ka qayb galaya tartamada 800 mitir ee orodka iyo 10 kilomitir. qodobka u dambeeya barnaamijkeena xulka xogta toddobaadka ayaan ku soo qaadanay in qaramada midoobay ayagu xasuus u muujinayso dadka mutadawiciinta iyagu sida gargaar bini'aadantinimo u fidiya dhammaan dalalka ay ka socdaan masiibooyinku, kuwaasi ayaa xasuus loo muujinaya. munaasabadda maalinta caalamiga ee gargaarka bini'aadantinimo oo sanad kasta la qabto markay ku beegan tahay 19 bishan Août, qaramada midoobay waxay xus iyo maamuus u samaysay shaqaalaha gargaarka bini'aadantinimo ee ku noof waayay amba la kulmay dhibaatooyin xilli ay gudanayeen waajibaadkooga ayagoo u adeegaya dadka ay saameeyeen dhibaatooyinka iyo xaaladaha daran. si loo xuso maalintan caalamiga, calanka qaramada midoobay ayaa hoos looga dhaadhiciyay xarunta ururka ee ku taala magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya. Tallaabadan ayaa lagu maamuusayaa ragga iyo haweenka ka shaqeeya howlaha gargaarka bini'aadantinimo iyada oo sidoo kale lagu muujinayo muhiimadda ay kaalintoodu u leedahay bulshada ku nool marxaladaha degdega ah. daawadayaal barnaamijkeena xulka xogta toddobaadka intaas ay ku diriyeen intaan ku kulmayna barnaamijkan kale waxaan ku dhaafaynaa dhammaantiinba nabadgelyo iyo nooli kulanti.